markii dambe tiraablaayay anuu xamsan u tegayay marka 4 sano soo socdaan inankan 3 sano jaamacad iyo sanadkay soo socdeenoo bishan ay aqal qaliin gaari laga helay wadada yaalo oo laba qof oo min ku jiraan horta marka koobaad walaal inanka xamsan la oran jiro wuxuu ahaa staafka khaaska ee madaxweynaha iyo wiilkii iyagoo aan nafku jirin oo gaari dhex yaala laga helay magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda shacabka maxaa ka soo kordhay xogtii ugu dambeysay ayaa la helay gabadhan iyo wiilkan waxa ka dhaxeeyay iyo waxa sababay iyo sidoo kale sida ay wax u dhaceen waxaan rabaa inaan kula wadaago wixii ugu dambeeyay ee laga soo arooriyay xog ah iyo sidoo kale cadeymo muujinaya wax dhacay maxaa ka jira in labadan qof iyagu ay is sameeyeen oo xiriirkooda ay eheladooda diidanayeen waxaan rabaa marka waxyaabaha social media ka socda xogtii ugu dambeysay ee sax ka ah iyo halka ay wax ku dambeeyeen baarista ciidamada oo soo gabagabowday inaan halkan kugula wadaago fadlan waxaan ka codsanayaa mar kale iyo mar labaad inaad u duceysid walaasheen Huda iyo sidoo kale iyo walaalkeen Xamse Axmed Yuusuf oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada Soomaaliland muuqaalkan share garay la wadaag saaxiibadaada waa maasantahay haddaba shalay maxaa ka dhacay magaalada Hargeysa waa barigii shalay waxaa laga helay xaafadda shacabka baabuur yaala wadada dhexdiisa oo ay dhex yaalaan gabar iyo wiil gabadhuna sanka iyo afka uburka deynayso wiilkana korkiisa oo ku yaalo matag kuma oolin jirkooda wax jaraaxa ah ama wax dhaawac ah sidoo kale naf kuma jirin oo dad ruuxdu ay ka tagtay ayay ahaayeen markiiba waxaa loola cararay isbitaalka weyn waxaana la xaqiijiyay dadkan inay mar hore naftu daysay oo ay yihiin marxuumiin markiiba waxaa lagu xareeyay talaajada lagu xareeyo dadka aan noolayn baaris ayay ku sameeyeen ciidamada CID-da iyo sidoo kale dhaqaatiirta isbitaalka iyo kuwa baarista qaybta caafimaadka haddaba inta baaristu socotay waxaa la baaray taleefanada gabadha waxaa la baaray cunno gaariga u saarneed waxaa la baaray dadkii la xiriireen iyo kaamirooyinka ku yaala eriyada ay wax ka dhaceen sidaan xogaha ku helnay kaamirooyinka meesha ay wax ka dhaceen wax information ah lagama helin sababtoo ah gaarigu sidoo u socda ayuu istaagay dadka degana kaamirooyinka lagama arag tan labaad taleefanka waxaa laga helay gabadha inay wiilku tiri waan kuu soo dhawahay hadda ayaan guriga ka soo baxay xog intaas dhaafsiisan iyadana lagama helin ehelada marxuumiinta waxa ay sheegeen gabadhu xilliga ay guriga ka soo baxday kadib inay soo waceen dhowr saac kadib xilligii saqda dhexe balse ay taleefanka ka qaboweysay waxaana laga yaabaa inay tahay xilliga uu dhacay shilku ama dadkan ay xaalad halisa markaas ay ku jireen Allah u naxariistee waxaa la xaqiijiyay labadan qof inuu ka dhaxeeyay xiriir 4 sano ah gabadhu 3 sano ay jaamacadda dhiganaysay iyo haatan oo ay jaamacadda dhameysay gabar aqoon-yahanada ah oo ciideeda curad u ah ayay ahayd waxaa la sheegay in walaalkeed uu aroos ahaa xalay oo ay arooska walaalkeed xitaa isu diyaarinaysay waa sida xogaha aan ku helnay waxaa sidoo kale been noqotay wararka lagu wada baraha bulshada ee ah in gabadhan iyo wiilkan la isu diiday sidaa darteedna ay iyagu sunoocabeen waxaana xogta aan ku helnay in labadooda xitaa ay qorsheynayeen in bilahana soo aadan ay dadab galaan oo is aroosaan oo aqal galaan taasina uma suuro gelin halka wax ka dhaceena waa meel u dhow madaxtooyada ninkaana wuxuu ahaa sarkaal dhawaana dalacsiye oo kamid ah saraakiisha ilaalada madaxtooyada falka isaga uu u nafwaayay wax xiriir kale ma lahan madaxtooyada inta baarista lagu ogaaday sida xogaha hordhaca ah ee la helayo ay sheegayaan waxaa 100% loo maleynayaa dadkan inay sababsadeen cunadii ay cuneen waxaana baaris lagu wadaa dadkii meesha ay wax ka soo gateen maadaama taleefanadooda laga helay halka ay ku direen lacagaha toosna loo tagay waxaa la baarayaa cunadooda iyo dadka mataqaanaa meesha ka shaqeynayay qaas ahaan cunno kariyaha iyo qofka cunada diibayay waxaa sidoo kale la ogaanayaa
lana baarayaa taleefanadooda in dad ay la xiriireen aqoon u leh Xamse iyo ama gabadha, oo laga yaabo in barnaamijkan shirqoolka ah uu yahay musalsal, halkaasna baaris ayaa ka socota. Marka baraha bulshada waxaa la isla dhex wadaa dhowr arrin: in gabadha iyo wiilku si kasta ay sunta u cabeen, in labadooda mid ka mid ah ay sunta siisay kan kalena uu sunta u cabay, iyo sidoo kale in qaab qabiil loo qaarijiyo dadkan oo ay qabiil ka dambeeyeen, ha ahaato kuwa madaxtooyada ka tagay ama kuwa hadda madaxtooyada jooga. Waxaa la sheegay sirdoonka Itoobiya inuu ka dambeeyay arrinkan. Waxaasoo dhan ayaa la isla dhex wadaa. 99% warkaasoo dhan waxba kama jiraan. Dadkan waxaa loo badinayaa baarista hordhacana ay sheegaysaa in ay ku sumoobeen cuntada ay cuneen. Boolisku waxa ay baareen in dad ka cunay meesha ay iyagu wax ka cuneen ilaa xilligii ay wax cuneen oo xitaa u xanuunsaday in la helo. Dabcan waa la waayay. Waxaa sidoo kale jira warar iyaguna sheegaya in qabow daran uu dhacay xalay xilliga ay gaariga meesha soo dhigeen. Daaqadaha muraayadaha gaarigana ay dillaacdeen, neeftuna ay ku xirmatay gaariga maadaama uu soo deynayo kiimikaal hadduu daaran yahay gaarigu, ayagoo doonaya inay ka helaan diirimaad gaariga. Waa dhici kartaa tusaale ahaan oo kale gaaska, haddii aad xasuusataan Masar waxaa ka dhacay ayaan dhexe oo halkan idinkugu tabinay in qoys guriga si habeenkii iska seexdeen gaaska guriga uu ku furmay, ay ku qabatoomeen, sidaasna ay u geeriyoodeen. Ayadan waa dhici kartaa, kulley baarista lagama hordhici karo, laakiin waxaa jira dad isticmaala social media oo u gafay gabadhaas wiilkaas dhalinyarada ah, oo jaa-ifeeyey, oo mataqaanaa ilaa heer xun gaarsiiyey. Dadaa waxay ugu xadgudbeen sharafkooda, dadaa waxay sheegeen in ayagu nafsadooda ay qaarijiyeen. Kuwo kale ayaa sheegaya in qabiil ay sababsadeen, kuwo waxay sheegayaan familkooda inay sababsadeen. Marka isku soo duuduubo, ama Ethiopian ha ahaado ama qof kale ahaadee, dadkaasi laba bay sababsadeen in cunno kama ama kas waxay ahaataba, waa kas way noqon kartaa oo shirqool waa noqon kartaa, in loogu talagalaa dhici karta inay sababsadeen oo Allah subxaanahu wa tacaala taas oo nafsadooda inuu ku gooyo uu qoray, iyo in gaarigaasi xilli qabow saa'ida uu jiray diirimaad gaarigoo daaran inta muraayadaha dillaacdeen, sababtoo dabcan muraayada in la dejiyo u baahan markaas oo kale ay wax ka soo gaareen. Waxaasaa dhici kara. Kulley jirkooda daawooyin ama wax sun ama kiimiko waxaasoo dhan waa laga baarayaa, baaristuna waa socotaa. Laakiin wararka ugu dambeeya laga helayo waa intaas. Wixii intaas ka dhaafsiisan oo aan booliska laga maqlin, dabcan waa wax aad qalad u ah. Gabar aqoon-yahanada, muxtaramada ah, wax baratay, qoys bahdeeda curad u ah, aabaheed iyo ehelkeedu ay yihiin dad wax bartay, siyaasiyiin ah, sharaf leh. Ilaahay qadaray in meeshaas iyo xilligaas oo Ilaahay mataqaanaa uu ku qaato arwaaxdeeda, qabiil aan shaqo ku lahayn, oo ololeynin, qof danteeda iska raacato shaqaysata ah, in marna qabiil loo saariya, mar inay iyadu isqaarijisa loo saariya aad iyo qaabdar u tahay. War jirana cakaaru imaano mataqaanaa baarista booliska iyo wax ka soo bax waa sugi doonaa. Insha Allah waa mahadsantihiin. Fadlan qoyskiisa u duceeya. Share garee muuqaalkan lana wadaaga saaxiibadiin. Waa mahadsantihiin.